kusoo dhawaada qaybta idaacadda raadiyo baraarug media iyo qaybaha kale ee telefishinka baraarug tv iyo qaybaha kale ee shabakadaha baraarugnews.net dhalinyarada kala duwan ee beesha reer gadiid oo ka mid ah beelaha sacad muuse ee ku dhaqan gudaha somalilan ayaa dhammaan taageeray murashaxa u taagan xildhibaanimada aqalka golaha wakiilada somalilan professor cabdiraxmaan axmed shuluf iyo markaana waxay bogaadiyeen jiif caaqilada iyo madax dhaqameedka beesha reer gadiid usoo xulay professor cabdiraxmaan axmed shuluf in beeshooda reer gadiid u matalo ee u gartay shakhsiga isku raaceen inuu noqdo murashaxa u matala beesha reer gadiid doorashada 2021 golaha wakiilada somalilan professor cabdiraxmaan axmed shuluf qaar ka mid ah dhalinyarada oo isugu jira wiilal iyo hablo oo ka soo jeeda beesha reer gadiid oo xalay munaasabad ay ku taageerayeen professor cabdiraxmaan axmed shuluf oo 24kii bishan January 2021 magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xildhibaanimada aqalka golaha wakiilada Somaliland iyadoo oo dhalinyaradaas beesha reer gadiid ku qabteen hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa xaflad balaaran oo ay ku taageerayeen murashaxan oo xusay dhalinyaradaasi inay dhinacooda dhalinyaro ahaan ay taageero hil iyo hooba ay garab taagan yihiin professor cabdiraxmaan shuluf ee u taagan xildhibaanimada aqalka golaha wakiilada ee beeshooda waxaana ka mid ahaa hadaladii kala duwanaa ee dhalinyaradaasi ka jeediyeen xalfadii ay xalay ku qabteen hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa oo hadaladoodii ay kalka ka jeediyeen munaasabadaas xalay aan ugu soo gudbinayno halkan والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هوينك اليرضى لما أنتم وحنا السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم حفلة العاوة السجون نبي نحن السجون نبي كله إن العاوة هم بلينو تاجرنو الشخصية نو تاجر سكوت عبد الرحمن إن صوت هذا مرشحة golaha wakiilada ee gobolka Muradjec rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa markii uu malakul jibriil ugu yimid qaar xira markii ugu horeysay loo waxyoon doono ayaa Khadiija ku tiri isagoo dabeetana argagaxsan buu ku soo noqday gurigii Khadiija markaasay ku tiri iyadoo laabta u qaboojinaysa iyadana u dejinaysa وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق معناه وحوي نبي الله مرتدنا ومتصورة أياتها كان وحقوس فكرة إنه ياي من مرتدى صورة لقفك تعسن قرب ساقة لدتك ونأكسن يدتك مضت بالشقاء حريرية مركزة عبد الرحمن وحلي عبد الرحمن إلهي هكا أستكتاكي أقوم مايو سياسة لو إسكت لافا بلطايا هدي عبد الرحمن وإنا أنا بحب جاجا يهي سجاجا يهي مرضانا أنا مرة بكهرين إلا الحقيقة لسه إن شاء الله تعالى ونحب عيننا ونكبر برتاجنا تذكر أكسن اللي تبيو مرة يعني تذكر أكسن يوم بشر مرة قرب تحسن وفرينا تاينا مقاطع وقناي ألا جواب الطقنا ونجاجا هذه هي النتيجة لو أن الله جسمه كعنا يأتي راه جسمه الله يقرنا يا كان تابلو فتنا سودو عبد الرحمن سودو ما صار أنو أنت لا عقل أنا همليه بكسر لبنا قصبي قاف أسودي الجرودين السوتي مادين وتشتين وأبوتين إنك الجعل يفرح سيانين سيدا أخلون يشيء يا مركا دول سنة يوح ما يصدق مهم كوبوي يروح ويرجع هذا ما غير جديد هان ضلني أهان يعني شعوبتي نقوم أرخي وجهينا فحق يبقى لكم أنا أقول والله صح هذا كنت حاسور مع الأخضية حاسور سر رونا ترى ولقي لما سوون استاجي أرجيسنا وجهه يا رجعوا يفرح والله نعم هذا غدير وحنا يدل يعني أنت إنما أنت عاود فردا
haddii aan isku duubnaano ama aan samayno isku duubnay waxaa laga yaabaa inaan guul ka gaadho ayaha dambana aan anfacaysa caruuraheen iyo ehelkeen iyo dadkeen anfacaysa anuguna waxaynu horan lahaa ilmaadeedayaal mar walba joognaba jabina aan isku duubnaano ويشكر الله إن شاء الله أنا أشكر الله وأشكر غير ذلك البرشلونة أحسن وقاعد وسعيد حامدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبيب كان ويولي الله يلا باي ويصل تايجرو الشيخ باي الرحمن الحسن ويا هل شرع بلا وكيلنا oo ay u doonanayno inuu wax ka bedelo yacni qaabka ama systemka maanta uu salaysan yahay golaha baarlamaanka waa muhiimad maanta isaga u yimid laakiin ubadkeena aayaheena iyo qarankeena ayuu yimid waayo waxaynu ognahay waxa aynu halkaa geynaa ama dadkaaynu halkaa geynaynaa inay yihiin kuwa la xisaabtami doonaa dadka la soo gafo dhammaantiin maadeerada iyo maamulka wasaare aad baan ugu faraxsanahay horta inaan halkaas ugu odeynano oo aan ka soo qayb gala xafladda aad baan ugu faraxsanahay dhammaantiin waana magaaladii لكن عبد الرحمن ومشرح صومالي لا نضرها